Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Ogaarka Dunida oo aad ka daawataan janaalka Wanaag Media. Daawadayaal barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa Dwayne Johnson ama The Rock oo sharaxaad ka bixinaya sababta uusan musharaxa madaxweynaha Mareykanka u noqon karin 2020. Jalaaga caanka ah sidoo kalena ciyaarta WWE looga dambeeyo Dwayne Johnson ama The Rock ayaa hore u sheegay inuu istaagi doono loolanka hoggaanka dalka Mareykanka marka la gaaro sanadda 2020, balse The Rock ayaa hadda sheegay inaysan macquul ahayn 2020 inuu kursiga Mareykanka u tartamo, sidoo kalena uu dib u dhigay damicigii kaga jiray inuu shacab weynaha Mareykanka hogaamiyo siyaasad ahaan. The Rock oo 45 jir ah wuxuu yidhi, suurtagal iima aha inaan u tartamo kursiga USA 2020 ama xitaa 2024, waayo hankaygu wuu sarreeyaa, laakiin arrimo badan ayaan ii suuragelaynin. Bishii May markii aan ka dhawaajiyay inaan doonayo noqoshada madaxweynaha Mareykanka, kaftan igama ahayn, welina waan rabaa, laakiin siyaasadda rag ayay u xiran tahay. Aniga xoolahaas ayaan wadaa, mana sahlana inaan madasha si toos ah u soo koro. Dhinaca shaqada filim jilista, The Rock waxaa u diyaarsan filimka Jumanji: Welcome to the Jungle oo ay la jilayaan Kevin Hart, Karen Gill iyo Jack Black, waxaana gudaha USA laga daawan doonaa 20 Diseembar 2017.